inuu Soomaaliya iyo Somaliland dad holda waxanahay xiriir dawladnimo iyo walaalnimo ka dhaxeeyo adiga laakiin yaa ku xiga xabashiya marka laga yaam xariya Soomaali keeba ku yani Soomaali bay xigta nin Soomaaliyan hay Soomaalinimadeeda waxba ku wato dadka arinta quwadeynaya waxay leeyihiin markay qadiyad noqoto iyo wax kala bedelasho noqoto Ethiopia haday ictiraaf siinayso oo Soomaaliyana ay diidantay ictiraafkaygi aniga waxay xigaysa Ethiopia adu qadiyada ma aaminsan way hadii xitaa ictiraaf nasiyaan mar walba inaga Soomaalinimadeena xigta hal hays baa baxday barigii aad wadani ka tagto waxa tiri wadani waa inoo boorama maanta kulmiyana ma joogtado wadani baa joogta maanta hal haysta bixi doonto maxay noqonaysaa marka isagu meel aan u dhaartoon kulmiyo ilaa waa inoo boorama ma joogo maanta gelin horaan hubnaa inaan ka doorashada hadduu madaxweynuhu sanduuqa intuu hudegta ku hadduu dhulka dhigo sagaalka subaxna doorashada la kala leeyahay taana ku balan qaaday dadka adiga ku dhaliilo waxay leeyihiin in muumiseed isaga laftiisu markii wasiirka ahaa mas'uuliyiintu ugu xariga badnaa buu ahaa ee dadka caburiya ee xiri jiray bal maanta xarigu xanuunkiisa ma waxaad ogaatay markaad banaanka u soo baxday anigu markaan wasiirka hal qof oo siyaasiyiin oo anigu xidhna ma jirto daawadayaal hadda waxaa dhinacayga taagan wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Saad oo ku soo dhaweynaya mudane wasiir maanta xaflad ayuu xisbiga wadani lahaa oo lagu soo dhaweynayay siyaasiyiin iyo hal door xisbi gobolka saaxil ka soo jeeda bal wadani iyo 13 November oo soo jeeda oo soo dhow maxaa la rajeenayaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin runtii waa runta maanta waxa la soo dhaweynayay siyaasiyiin mug iyo miisaan ku leh gobolka saaxil gobolka togdheer caasimadda Somaliland Hargeysa oo runtii ah 8 oo iskugu jira xildhibaano wasiiro hore barasaabadii hore muxuu ahay runtii saameyn iyo mug iyo miisaan ku leh deegaanka ay ka soo jeedaan dadkuna waa labo midna waa dad saameyn leh dadna waa dad bulshada ka mid ah marka raggan maanta la soo dhaweynay xisbiga waddan aan ku soo dhaweynayno rag miisaan leh bay ahaayeen runtiina waxaad arkaysaa isbedelka Somaliland ka socda isbedel doonka ay qaybtii ugu weyn ka qaadanayaan midda kale waxaad la socotaa muddooyinkii imka ugu dambeeyay gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi wuxuu joogay magaalada Burco muddo 12 cisho 12 cisho sidaad aragtay social media adiguna aad soo gelisay xaflada aad u ballaaran ayaa ka socda gobolka Togdheer taasi waxay horseed u tahay isbedelka maanta la rabo inuu ka dhaco Somaliland runtii maanta waxay u ciil qabtaa oo shacabka reer Somaliland u ciil qabaan isbedel baa u qabaan isbedelkaas oo noqda mid dadka iyo dalka isku wada way wasiir markaad xisbiga kulmiye ka tagtay hadal hayno badan baa soo baxay oo wasiirnimadii markaad ka tagtay mar waxa la yiri irir Soomaale mar waxa soo baxday waxaanu nahay xabashi baanu walaalanahay bal xisbigii kulmiye xukuumadda hadda joogta hadallada kala duwan ee dhigaha dadka loogu ridayo adiga maxay kula tahay runtii waa arrimo runtii laga xumaado waa inagu maniin oo Roomani inagu Ethiopian maniin inagu waxaan ummad baanu nahay ku abtirsata Soomaali baynu nahay inagu dad islaamaynu nahay marka runtii waa hadalladaasi ma ahayn hadallo runtii aniga cajib galiye ma ahayn aadna waan ugu xumaaday waxa iyaduna meesha ku jirto runtii aad ugu xumaaday hees la qaadiyay 26kii June oo madaxtooyada lafteeda laga qaaday oo leeyahay Soomaali waxa naga xiga xabash waxyaabaha soo dhan markaa wala itigiska Soomaalinimada kuma qurux badna inuu Soomaaliya iyo Somaliland dad holda waxanahay xiriir dawladnimo iyo walaalnimo ka dhaxeeyo wada dhalashan ay naga dhaxayso laakiin waxaynu kaliya isku waxa weey war 60kii anaga in soo doon anaga in la soo doonana calanka maantana dalkii markuu burburay anagu goonideedii baynu u goonay marka iyaga laftooda waxa wanaagsan in inaga aqoonsadaan bay aqoonsilaanta ay aqoonsan waayeen waxay keentay in dadka meel fog gaaraan bay keentay marka heesaas oo kale runtii maan jeclaysan anigu shakhsiyan ahaan dadka Soomaalida ee dhageysatay ma ayna jeclaysan marka wada dhalashada iyo wax wada dhalashada ayaa waxay ka weyn tahay wax kasta taas ka weyn marka runtii taan waxaan leeyahay hobolada waxaan leeyahay war arrinta noocaayna hal iska ilaaliyo wasiir adiga laakiin yaa ku xiga xabashiya marka laga yaam xariya Soomaali keeba ku xiga yani Soomaali bay xigta Soomaalida ay xigta way Soomaali baan aanu marka Soomaali waxba kuma doorsan karaan nin Soomaaliyan hay Soomaalinimadeeda waxba kuma doorsan karaan dadka arinta quwadeynaya waxay leeyihiin markay qadiyad noqoto iyo wax kala bedelasho noqoto Ethiopia haday ictiraaf siinayso oo Soomaaliyana ay diidantay ictiraafkaygi aniga waxay xigaysa Ethiopia adu qadiyada ma aaminsan way hadii xitaa ictiraaf nasiyaan mar walba inaga Soomaalinimadeena xigta Soomaalinimadeena xigta way dad Soomaaliyeed baan nahay dhibab badan Soomaaliya way ka dhaceen dhibaatooyin badan baa la isku geysay wixii oo dhan waa la iloobo wada dhalashada ka dhow
laakiin hal hays baa baxday berigii aad wadani ka tagto waxaad tidhi wadani waa inoo boorama maanta kulmiyana ma joogtado wadani baa joogta maanta hal haysta bixi doonta maxay noqonaysaa de kulmiya maanta wadani maalinta de waxay ahayd kelmaddaasi waan idhi oo runtii waanan ka dhabeeyo de wadda markii horeysay raggii u soo wahayn xisbiga ridaan baan ka mid ahaa laakiin iminka kulmiye waxba odhan maayo dee kulmiye khudbadihiisaaba kugu filanba khudbadihiisaabaad garanaysaaba inuu dee xisbigaasi u galbaday oo shacabka reer somaliland ka soo jeesteen marka isagu meel aan u dhaartoon kulmiye idhaa waa inoo booram maba jooga maanta marka waxaad leedahay gelin horaan hubnaa inaan ka shubanayno doorashada hadduu madaxweynuhu sanduuqa intuu degta ku hadduu dhulka dhigo 9 subaxna doorashada la kala helaya taana ku ballan qaaday halkan ugu dambaysa ee shacabkaad uga dirayso madaxweynihii aad muddo soo wada shaqeynayseen oo maanta ku adkaysanaya in indhaha lagu galo doorashada maxay noqonaysaa horta indhaha madaxweyne muuse markuu guddoomiye xisbiga ahaa kulmiye buu diiday indhuhuna way ogi oo indhuhuna wax soconaya maaha wax iminka aan ka gayoon karnana maaha arrintaa laakiin aan waxaan u dhaafayaa mas-uul ahaan komishanka doorashooyinka qaranka ayaan taa u dhaafaya laakiin shacabka reer somaliland waxaan leeyahay haynu ilaasanno midnimada iyo wadajirka ummadda reer somaliland taas ayna wada deeqaysa taa aynu wada ilaasanno intaad isaga madaxweynaha laftiisa u diraysa maxay noqonaysaa madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo guddoomiyaha xisbiga wiciid faysal cali waraabe iyo musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro waad u simantihiin maanta doorashada soo socota siidha wadayaashu waa komishanka adiguna amar ma bixin kartid aad komishanka ku amrayso cabdiraxmaan cirana ma bixin karo amar komishanka ku amrayo faysal cali waraabana amar ma bixin karo siidha wadayaashu waa komishanka mas-uuliyaddu maanta waxay saaran tahay komishanka adiga keliya madaxweyne waxaa ku saaran miisaaniyadda qaybta muxuu kaga soo aagtay Soomaaliya lacagta inaad wasiirka maaliyadda u sheegto la basreeyo muxuu ahay la dhameystiro waxyaabo kaga soo aada laakiin waxa lagu galayo iyo hawlaha muxuu ahay doorashooyinka komishanka qaranka ayaa u xaq leh madaxweynuhu taa shadii waduu ku khaldamay aadna uu degdegay awoodiisina maaha aad iyo aad baan dambeyntii aad baad u maasantay wasiir waa kuu soo gabagabeynayaa waxaan kuugu soo gabagabeynayaa waxaa jirta siyaasiyiin kala duwan oo gobolka Awdal lagu xidhay oo xukuumaddu xidhay adiguna in badan aad ka hadashay dadka adiga ku dhaliilo waxay leeyihiin in muumiseed isaga laftiisu markii wasiirka ahaa mas'uuliyiintu ugu xariga badnaa buu ahaa ee dadka caburiya ee xidhi jiray bal maanta xarigu xanuunkiisa ma waxaad ogaatay markaad bannaanka u soo baxday bismillaahir rahmaanir rahiim su'aal fiican horta dawladnimadu dawlad marka la jiro xarigu imanaya oo qof sharcigu xarigu imanaya laakiin de siyaasiyiin anagu markaan wasiirka ah hal qof oo siyaasiyiin oo anagu xidhna ma jirto marka kulli xarigu haddii de dawladnimada keenaysa oo aniga marka xarigu wax weyn maaha laakiin anigu ummadda reer somaliland waxaan leeyahay mar walba midnimada iyo wadajirka iyo walaaltinimada ha la ilaaliyo aad baad maasantay wasiir aad baad maasantay